marka le rasuulku sallallahu alayhi wasallam tanun busiyara iftiimiyo wuxuu leeyahay waditu anna qad ra'ayna ikhwanana qalu awlasna ikhwanaka ya rasuul allah anteenadu karu jiiday nabigu aragtidiisu meel dheer wax ka eegay asxaabtii buu la hadlay markaas wuxuu leeyahay waxaan jeclaan lahaa walaalaheen inaynu arki lahayn walaalaheen markuu hadalka nabigu leeyahay de asxaabtiisi buu meel la joogaa moogta marka asxaabtu waxay yiraahdeen miyaanan anagu walaalaha ahayn maya idinku asxaabtaydii baatiin buu asxaabtaydii baatiin antum asxaabi wa ikhwani hum alladhina lam yatu ba'd walaalaheen waxa weeye kuwaan wali imanin balag labada eray bixin buu kala sameeyo intii marka isaga la joogtay aragtay waa walaalo asxaaba intii isaga aan arag asar rumaysay sideenoo kalena walaalo u bixiyay aan asxaab ahayn oo iyagu aan arag nabiga waa walaalo marka eray bixintaas de quraanku uu ka soo dheeganayaa baa la oran karaa suuratul hashr hadaad akhrido saddex qolo ilaahay dadka u qaybiyay asxaabtii oo laba ah iyo ummadii ka dambeysay oo qolo qura ah للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وقلدي سوق حدا مكة كتم إلهي دلادي وسوق حدا قلدا كلنا وامحي والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يكوي مدينة دجناي سودوي قلدا صدحاتنا والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان إلى آخر الآيات كوي يمي قلال إلى قيامها مسلمين تأمن دونا يقولون وحي يدعين يا أصحابتي يددك هراء قصة حلاقرة والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا وحي إله أنك نولاف ولا لها ينولاف ولا لها سوى وأصحابتي النبي تابعينتي كسيحي يوكا sidaas uu sameeyay marka waxa wallahi ina wayna xiisaynaya rasuulku sidaynu inagu u xiisaynayna inaynu nabi maxamed arki lahayn ayaa isaguna wuxuu jeclaysanaya dada nabiga arag asxaabtii arag ummadii waxay ku soo degay arag hadana islaama oo qoraalo ay heleen iyo xaashiye la soo gaarsiiyay ku qancay oo iimaankoodu qaran leeyay oo ku dayanaya asxaabtii halkaas uu markaa nabigu xiiseeyay inuu ina arki lahaa buu xiiseeyay saynu inaguba u xiiseynayno inaynu u jeclaysanayno inaynu arki lahayn rasuulka sallallahu alayhi wasallam qiyaamaha allah ina aragsiyo nabiga